Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kani waa safarkii geerida. Dad u badan muhaajiriin Afrikaan ah isuguna jira Soomaali iyo Etoobiyaan ayaa waxay safar ka soo bilaabaan bariga Afrika, wadamada Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea, ayagoo soo mara xeebaha isku xira Yaman iyo Soomaaliya, Yaman iyo dalka Jabuuti. Dabadeed waxa ay maraan buurahan aad u jeedaan ee rafaadka iyo dhibaatada lagu marayo. Qofkii ka soo dhacana dib dambo aan ruuxdiisa iska daaya raqdiisa xataa la arki doonin. Marka ay duurta dusheeda ay tagaan, waxay la kulmaan toogasho oo waxa toogta ilaalada xuduudda dalka Sacuudi Arabiya, ama waxaa loo geystaa duqeymo dhanka diyaaradaha ah. Waxaa loogu dhintaa haraad, waxaa loogu dhintaa gaajo, waxaa lagala kulmaa rafaad fara badan. Haddii ay nasiibka uu u saamaxo ay intaa ka soo badbaadaan, waxa ay la kulmaan qabasho, jirdil, dumarkana waxay la kulmaan kufsi iyo waxyaabo kaloo aad iyo aad u rafaad badan. Wallaahi waa meel dhibaatadeeda leh. Maalin dhaweyte mar aan la kulmay dhalinyaro ka mid ah dhalinyaradii ka soo gudubtay meeshan aad u jeedaan oo aan ku kulannay magaalo weynta Jidda, wuxuu igu yidhaahday dad aniga ila socday. Anigu wuxuu yidhaahday iyadoo la ixabadaynayo cagahii oo kusoo fakaday ayaa gabdho Soomaali ah waa lagu dilay meesha, qaarkoodna inta buurta dusheeda lagu dhaawacay ay ka faniineen. Dib dambena looma arkayo qofka faniina. Wallaahi marka waa rafaad aad u fara badan ee dadkeena haysto. Waxaan dhihi lahaa Soomaalida intii ay u soo bareeri lahaayeen geeri ayagoo uga soo cararay dalkoodii dhibaatooyin kala duwan, haddii ay ahaan lahaayeen dhanka dhaqaalaha amba ay ahaan lahayd dhanka amniga. midaana kasii daran, bal fiiri buurta. Haddii aad meeshan ka faniintid, ma filayo in dib damba lagu arkayo. Wallaahi waa meel aad u rafaad badan. Ilaahay dadkeena markaa nabadgeliyo meel waliba ay ku sugan yihiin. Waadna mahadsantihiin.